mataqaanaa waana la weyn mar walba waa inuu ku celceliyaa u dhahaa waa shaqaan wadnaa waa qabanaynaa waa yeelaynaa waa Relax, strong man. Yep. ha so ما لكن كان فيري this is smart هورت وركيسنا waa cad yahay less smoke on the street u dhahay moogtahay in wax tuuro dadka la buufiyo ma sameynayo laakiin howlgalkii ma sii leeyahay tan marka oo target operation ka wixii kale oo shabaqaas ku soo dhacana waxa waaye adoo I94 haysta ama green card haysto record uu kugu jiro systemka oo criminal ama anything wax un ay kugu heli karaan bending hadda dhalinyaro badan oo waxaan aqaanaa oo dabikabooda oo maxkamadaha ay siiyeen sharciyada loo ogolaaday warqadii ogolaanshaha way haystaan laakiin I94 kii aan loo soo dirin markuu suspension last year ku sameeyay immigration operations oo dhan markaas oo kale warqadii wixii maxkamaddu oo ogolaatay ugu baasay waxna gacanta kuma hayo ragaas oo kale way maraysaa marka cagta la marinaa ma faham marka ninkan waa ka qatar badan yahay ninkii hore aaminsanaya teeda kale hadda maanta iyo observe gareenaya markii labaad waa arkay daran St. Paul aan ku arkay saas oo kale intii operation noocaas oo kale ayadoo maqrib markaas la taagay aan St. Paul waxa ku arkay East St. Paul Maplewood inta la gaaray agteeda same operation ka waday juuqlay ayadoon cidna ka warhaynin firimbi laga daba qaadanaynin ayagoo socday imaanayaan meesha u socdeen hawshooda ka qabsanayaan wixii kale cagta ay marin karaan waa ka gaarsiinayaan inana marka it got more dangerous for us haddii dadka moodaan hawsha inay yaraato qeyladii oo bovina sameynayay waxa waaye waraabaha ciyo kan aamusana ka darantii la dhaayaan ugu socotaa no it's true xaqiiq weeyaan ninkan inuu mataqaana aamusnaanta ninkan wuxuu la shaqeeyay Obama la shaqeeyo 3 million mataqaana tarxiilay so it's not easy yeah the border in chief markii la dhigi jiray aad iyo aad so nin sahlan ma aha xaaladdu waa saa update-kaas markeeda ka daba geynay bro thank you my brother thank you appreciate that salaam bro hay adama hay soo dhawaa qofka xiga maxaan oo haysaa MBX okay dadka intay ka soo imaanayaan ama update-ka aan ka bilaabayna waan sii wadeynaa haddii la yiraahdo walaashana weydiinaysay yes waxay dhaheen maanta 700 oo aysa ayaa magaalada gobolka laga saari doonaa effective immediately dhahay markaas 700 sida uu sheegay ninkaas Tom waa inay maantaba ka baxeen ayaa ama shaqadooda maanta joogsatay ayay ka dhigan tahay marka sida ala socda taas waa breaking news kan ahead balse waa sii wadayna insha Allah hello bimaqsha sifiican ba ku maqlaa bimaqsha brother sifiican ya niyo fiidiyoogii ugu dambeeyay waxaad sheegtay super media soo xiriiray oo hold laga qaaday oo green cardada helay ma sharaxi kartaa dadkaasi yahaayeen mada Soomaali oo dama kala basabarada haystaa mise waa intii uu holding ku jiray dad kiisaskooda ay wanteediga oo amba green card adiga maxaa status ku qaateen maxaa dadkaas halkaan ay soo qabsadeen live kaan ay soo qabsadeen nooga sheegeen so basically qof green card waxa dhisnaa oo u soo baxay holding kaga jiray u soo baxay ayuu ahaa waxaan u badinayaa dadkii qaxootiga inay ahaayeen oo holding kaga jiray inaan ahayn dadyo kale laakiin gabadhii noo sheegtay waa laga yaabaa inay nagu soo laabato oo ay faahfaahin dheeraada naga siiso insha Allah okay thank you su'aal kale ku weydiinaya hadaan ka gaarno kala xog wada haysaa niyo post ortayna saaran ma final process ka oo decision kumba mise ومعناه قفكو انترفيو مع ماري كرا كدب ديسيشن كومبو هوليغو ساري مسي ايفان انترفيو لما ماري كرا ويش كذا maxaad warka haysaa oo dhanka fiisada may booskiina saaran dadka inside-ka jooga ee green card-du xariisiin shaqada way socotaa dhanka xaraynta way socotaa dhanka decision-ka weeyaan waxa la istaajiyay inkastoo warar kale ay soo baxeen 2 days 3 days ago aan u baahan inaan revisit ku sameyno laakiin Postcast waa hold or final decision ka dad xareysanay waa jiraan hadda oo interviewna maraya laakiin decision ku baan helay I don't interview the loo soo diray faro iyo wax maraya waa aragnay laakiin I don't know interview xataa inuu hold ku jiray u badantay laakiin dadkan weydiinayna okay niyo aad iyo aad horta ma santay waa maalintii ugu horeysay nolosheeda qabsaday live waxaana adkaaga go'ay Mustafa hello Mustafa
Your voice went south. Your voice went south. Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Hello. ما Aye. مقشرة هاولا سؤال بربنا كويديو فهمك أي تدوان لدهو مرة فستحي الصومالي بسما الله فستحي سؤال بربنا كويديو والله warka ma hayo la fasaxay laakiin shariifka arintaas ku fiican aan lambarkiisa ku siino ama uu soo geli doonaa isaga weydiin doontaa insha Allah in la fasaxay kala taas hoosan kugu soo qoraynaa insha Allah. Okay way okay soo dhawaada akhyaaray waxyaalaha runtii farxad geliyay waxaa kamid ahaa Cocos Night-kii xalay dhacay oo ay maanta wargeysyada soo qoreen newsyada soo qoreen ayaa waxay leeyihiin dadka soo baxay aad bay u badnaayeen ha isugu jiraan cadaan iyo dee cadaan marba iyagaa u badnaanaya waayo populationka iyagaa u badan iyo dadka kale immigrantiga sida Soomaalida xataa sawiradooda la soo saaray NPR newska tan oo la yiri dad badan oo ka careysan sida administrationkan uu u wada howlaha ayaan mataqaanaa ka careysanahay saas ugu soo baxay Cocoska. That means dadkii waa baraarugeen haddii oo maanta February la marayo dad badan baa ku baraarugsan and that is good alhamdulillah. Hello. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. سلو. ما شاء الله. اليوم هذا ما سنت أستاذ وقتها قلنا community إنه سكور قبان يوهي أبديده هذا ما سنت عرفاس. أديك مدن. ما شاء الله مرتا ميد كلا ربي إنا أقعدو ما دام عند community الصومالي ده ديرتان وإحنا فوكس كرينا يوم من صار لو تبين توه بدن أنا جاي أهاين مركا soo lama rabin in community-ga laftirkiisa hadeertaan banaanbaxyaashii socday iyo baa ka qayb galaynay laakiinse si aad ugumaana muuqanin marka hadda waxaa arkaya cabaar ka hor gabar cadaan oo video soo duubtay maalin dhexdaas oo dhehayso gabadhii la dilaayay wax Soomaali usoo baxay ma jiraan adinkuunbaa dhimanaysiin ayaga wax ka gala ma lahan marka soo lama baahna in community-ga ololeentan iyo banaanbaxyadii iyo arrimahan macnaha maxaa la yiraahdaa in la iska warqabo meel la iskugu imaado arrimahan dhinac looga soo wada jeesto ayada laftirkeeda maadaama arrintan qaybta ugu weyn anaga aan ahayn macnaha horta my brother arrin baa jirtaan kuu sheegaya qodob fiican baa ka dhawaajisay khayr Allah ku siiyo waxaa jiro company la yiraahdo influencer.com la yiraahdo waxay sameeyaan waxay shaqaaleysiiyaan influencerro iyo dad caadi ah oo TikTok iyo Twitter-ka ay ku faafiyay fiidiyo waxaan waxay ahayd fuusta la soo riixay Soomaalida gabadhii mataqaanaa Renee dilkeeda kama qayb galin in cadaanka kala la tuso dadka aad protect garanaysaan danka ma laha waxa ka hadlaysaan in la tuso marka arrinkaas waan aragnay dad badan ficilin ka sameeyay iska riixay laakiin gabadhii Renee Nicole Good Soomaalida aad bay ugu soo baxday waa meeshii sambuus baa lagu qaybinayay shaah lagu qaybin mudaharaadyada waa laga soo qayb galay meesheedii way tageen annaga halkan live uga daawanaynay dadkii mataqaanaa habeenii maalin joogay meesha Alex sidoo kale waa kan hadda maaragtay ninka hortiisa lagu dilay xataa buildingka iska lahaa nin Soomaali ah yahay oo yiri mataqaanaa meesha lagu magac daraya dad badan ay imaaday marka it's crazy waa jiraan dad cusuriyiin jira oo fiidiyo naagtaas oo kale waxay iska dhigaysaa qof caadi iska dhigaysa laakiin qof salka ku haysa cadaankii keenay in Soomaalidii waxba ka galin arrintaas ama la tusaysa cadaan karta in tiraado inay ficil gelisay rabtaa ay tiraado listen why abnaa ku joogtaa mudaharaadaysa hadii mataqaanaa lagu dilo Soomaalidii iyo immigrantigiiba ay dan ka leeyahanba okay alright meesha fiiriya meesha immigrant aad u badan degan why she mentioning Somali immigrantiga kala aaway gabadhaas Soomaali kaliya u dhimatay mas waxay u dhimatay Chinese ka undocumented ka ah Isbaanishka Hindida Etoobiyaanka mataqaanaa Oromada Soomaalida yani ya immigrant oo dhan bay gabadhaas mataqaanaa difaacaysi Soomaha boqolkiiba ha marka reasonka ay Soomaali u mention gareynayso waxba la isku xiraya laba fiil la isku xiraya labada fiilo ah Minnesota Soomaali badan baa degan but at the same time
maadaama Soomaalida uu shiishada ay saaran tahay tus cadaanka ficil geli oo dheh waaya u dhimanaysaan waaya banaanka u soo baxaysaan waaya u mudaaharaadaysaan dadkii ma taqaanaa oo kaleba guryahay ku jiraan waa kana qofka niga dhinta xataa ma imaanayaan waana been iska caday ahayd wayna ku qasaareen laakiin Soomaalida wallahi aad bay u soo baxeen iyadoo weli winter lagu jiro cabsi badan jirto because fiiri gabadha cadaanka ah wadankan ma taqaanaa ku dhalatay ninka ayska ama istaajinayo laakiin gabadha Soomaalida ah xataa wadanka hadday ku dhalatay ama wiilka Soomaali wadanka haduu ku dhashay xataa they will check them dad waxa aragnaa wadan ku dhashay oo ay ma taqaanaa gas stationada iyo meelaha ay ku weydiinayaan citizenship-kooda sida wiilka ma taqaanaa maqaayada lagala soo degay korkeeda kii gas station ka taagnaa gabadhi yani dad badan hadda aragnay inta videoda aan ku aragnay kaliya you cannot imagine marka حتى same procedure manihin dadkan cadaanka ah ice ma istaajiyaan annaga ice way istaajiyaan that's why we have to carry our passport all the time marka it's true brother way soo baxay dadka wayna wadayaan insha Allah and I'm very happy say hadda community-geena wallahi u respond gareeyeen arrintan I'm very happy problem one thing on haysta waxay tahay mararka qaar wanaagga annaga aan sameeynay annaga dhexdeena waxaan u aragnaa enough inuusan ahayn لكن it's a big deal it's a big deal marka fiiriso target centerka dadkii ka hadlayay xataa waxaan xasuustaa maalintii loo borordiiqay Rene in meeshii ay culimo imaadeen ay ka soo jeediyeen muxaadaro ka soo jeediyeen ay dadka ma taqaanaa hadleen it was amazing ما شاء الله brother may community-ga mar walba inay iska warqabaan kulama yeeshaan dad isku xiran maadaama hadda Minnesota bes arrintan kuma koobna state walba oo Soomaalida degan yihiin ama immigrant-iga marka la dhaho ay ku badan yihiinba fuustadu waa lagu riixoyaa hadda ninkii wuxuu joogaa Malena San Diego marka community-ga inay isku xirnaadaan iska warqabaha si fiican Nick Charlie Somaha si fiican San Diego jooga marka in community-ga iska warqabaan cashirna ay ka qaataan wixii Minnesota ka socdo ama ka dhacay isku xirnaadaan hadday hadlayaan ay wax boonti oo macnaha macquul ay ku hadlaan ama ay ka aamusaanba absolutely marka la hadlaysid wuxuu sameynayaa inta ugu badan wuxuu ka raadinayaa wax boonti oo cadaanka kale ama dadka cusuriyiinta ku soo jeedin kara macnaha marka community inay iska warqabaan xaaladan hadda Minnesota ka dhacday inay cashir ka bartaan adii lahay I agree with you my brother good input soo dhawaada khiyaarta maxaa update noo haysaan bismillaahir rahmaanir rahiim السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله maalin wanaagsan kulay 2 saacadood kala horeynaaye si fiican I'm calling you from Seattle waa ku salaamaya adiga golahaba marka horeysa waxay dhaaftaan u maleynayaa shalay kokoskii xalay sidii loo tagay dadkii inay ka dhabeeyeen waxyaalihii ay ku soo qorayeen ay kulaayeen anigu 10 baan wadaa anigu 20 baan wadaa anigu waa tagay hadii xalayto kulankii dhacay see u dhacay dad dalba ka qayb galay habeen hore waa ogaa wiilkii oo maartay musharaxa wakaalkan inoogu yimid aad casuuntay marka bal marka horeysa intaanan halgaaba gelin bal hadda halka update naga yarasi wallahi kulankii si fiican u dhacay meelo badan baan war ka helnay oo ay dad badan oo Soomaaliya tageen meelaha qaarna way ku yaraayeen meelaha qaarna way ku badnaayeen laakiin waxa la isku raacay maanta newsida marka akhriso waxa la isku raacay caucuskan hadday cadaan tahay hadday Soomaali tahay iyo hadday immigrant kala tahay this one was one of the biggest caucus oo soo maray meesha marka dad badan baa yimid dadkan oo runtii wada diidan sida uu Trump administration wax u wado marka farxad bay ahayd ma sha Allah aad iyo aad waxay muujinaysaa dalkan waxa weeye wax kale lama qabto da violence-ku hadunbu si public u bilowday waxa lagu kala baxaa waa sharcigaas wadankan waxa kontonka state isku xiray waxa weeye waa sharciga ay sameysteen dagaalkii sokeeyaha ee dhaxmaray muddo dheer ka hor marka qofku hadduusan codkiisa muujin oo banaanka u soo bixin oo ismuujin isaga ayay dhacaysaa nimankan sida muuqata waxa ku soo socda tsunamigii 1994 dimuqraadiga ku dhacay ee la oran jiray Reagan Revolution Newt Gingrich hogaaminayay
iyadoo labada guriba ay dimuqraadigu majority ka yihiin oo 12 sannadood republicaanku waddanka haystay 8 Reagan iyo 4 Bush aabihiisa 12 sannadood baa Clinton qabsaday dabadeedna waxay isku qabsadeen house-kii iyo senate-kii iyo madaxtooyadii marka khaladaada xagga medical universal ay dabacday islaantii ninkii la odhan jiray Clinton ay dabacday inay samayso free sidan Obama care oo kale isku dayday oo kana ka yara duwan marka shacabka Mareykankuna waa inta September 11 dhicin oo dad stable oo ahaa dabadeedna had iyo jeer isuguma daraan labada guri iyo White House-ka in xisbi isku haysta way u qaybiyaan laakiin carab mala halka ka dhalatay baa waxaa dhacay 100 midtermkii March 1994 waxaa dhacay tsunami dimuqraadiga aan 4 years ku dhicin 168 xildhibaan baa house ka dhacay sanadkaas New Gingrich waxba Trump ka sokeenin laakiin de sidii hadda ninkii laga sheekeynayo kale nin stable oo degan oo shaqada yaqaan laakiin cunsuriya meesha qabsaday house-ka waa marka welfare reformka la sameyn doono marka waxa ay muuqataa sida hadda aynu Texas iyo aynu ka arkayno green light-da wada baxayo oo dhan midterm election-ka in nimankan weyna og yihiin weyna wada aaminsan yihiin dhammaantood odaygana waa ka soo baxdaa mar walba in uu tsunamigaas ku dhici doono wixii ay ka geysteen Mareykanka ICE-ku iyo dhaqamadii Republican ku dhaqmay arrinkaas waa arrin runtii aad iyo aad inoo farxad gelin doona haddii aan la idmo anu Western State baan joogaa Seattle baan hadii jeer kaaga soo yara update gareeya sax cusub saaka anagu ma hayno laakiin ogaarsigii ninkaas policy-giisa ahaaba shaqaynaya oo ka xunba kii ninkii Bafina dadka sida public-ga uu baadargareynayay oo maaragtay u dhibayay waa ninkaas markuu dadka qabanayo banaan buu soo baxay cadaawad ka badatay oo aan professional ahayn oo ahaa shaqadana aqoonin marka taas keenaysay in uu dadka waarkiisa markuu la hadlayay askartiisa uu amarka siinayo subaxii shaqo maalmoodkooda uu lahaa wixii idin qabta wixii qabta ku tuura dila nin uu adigu maaragtay battlefield ku jiro oo ka front line ka dagaalamaya cadow la dagaalamay marka ninkan waa nin sida hadda wiilkii ugu horeeyay uu sheegay in professional way oo maaragtay shaqadana yaqaana Obama 3 milyan oo qof buu tarxilay sidaad sheegtay ma dhib yarayn dhib badan buu geystay muslimiintana u geystay dadka immigrant-kana u geystay laakiin silent killer buu ahaa isaga ninkan buu wada shaqaynayay aad weyn ninkan Trump de maadaama aqoon la'aanta iyo dadka uu xushay arrintan ka kharibtay marka ugaarsigan baa ka xun kii hore public buu ahaa oo yani garaafka nacaybka ICE iyo Republicanka aad u sii kacayay laakiin ayamahan stable buu noqday oo maaragtay waa degtay arrintii oo hawshiina waa la wada hadda ogow dadka waa la qabanaya marka anaga halkan qabashadu waa iska socotaa xal waxa la ii sheegay saaka waxa la ii sheegay magaalada meel maaragtay suburbankeeda Seattle waa magaalo ballaaran oo magaca Seattle bay wada wadaagtaa laakiin shaqo isku male ereyadan uu degan yahay ninka la yiraahdo Bill Gates iyo ninkan kale Jeff Bezos iyo ninkan kuwa dharadooda niman ajnabi oo Hindi iyo waxa u badan engineer ah marka they don't care waa qabanayaan waxa la waxay arkaanba laakiin wixii public ah iyo guriyihii iyo cabsidii faraha badan dhalinyaradan halkan joogtaana state-kan waa ku badan yihiin oo goboladaas aad uga soo yaaceen maadaama state-kan local ilaa iyo maaragtay madaxtooyada gobolkaba nimanka laga nacib yahay oo aanay aad maaragtay waa kii maanta luutaan kuu sheegay gobernatoorku yimi airportka intay diyaarado dad soo degay dhibeen ayuu si toos ugu tegay oo yidhi meeshan aad joogtaan waa Washington State ciidana aad ku fadhidaan waa Seattle Washington anaa gobernatoorheediya dadka ma baadar garan kartaan waxa xoga caawinayaan waxa way labadan shirkadood oo maaragtay corporate office-koodii halkan ku yaalo Amazon iyo muxuu ahaa Microsoft dhaqaalahaasa keenaya waa shaqaale badan baa baxa yimaada kuwa adduunka ka yimaada corporate office-ka u yimaada maaragtay meeting iyo waxa u yimaada marka way ka yara socdaal badan tahay iyadoo xagga kale marka wiil baa wuxuu soo qorayaa sidee uga xun yahay ninkii hore taa Idris baa idin faalayn doona haddii alla idmo ninkii hore kole intaan ka dhiiban karaa waxa weeye ninkii hore wixiisu public cadaan ay ahayd xoog iyo awood buu ku dareeyay qabashadiisa waxay ahayd mid maaragtay ka baxsan xadka ka baxsan
wuxuu markaa samaysanaya cadow badan qaylo badan baa dhacaysay siiriyaa laga daba qaadanayay meesha imaanayaan ciidan badan buu watay ninkan laakiin wuu yareeyey ciidankii gurub buu ka dhigay xitaa quantigoodu waa yareeyo 20 ba u wataan baabuur qaarkood dhar cadbayba hadda qaataan bastooladihii waxa u xiran afduubkii dabadeedna mar waa kalluumaysi wuxuu iminka waa kalluumaysi marka maalintii waxay isku dayayaan adliis inay qabtaan ilaa 300-400 oo ay Minnesota ka qabtaan oo tuulooyinka iyo gobolada oo aan qaylo iyo frimbi iyo waxba lahayn inta kale ay dirso ugu dari doon marka annaga xaaladaydu maanta waa iska sidaa waa iska stable wax qabqabasho oo badan ma agra areada Soomaalidu ay badan tahayna waa area aan aniga lafteedu meel ka dhow deganahayo wax dhaqdhaqaaqa iyo wax cusub saaka maartay subax hore markaan tooso waxa soo yar maraa khayraad Soomaalida kuwa maartay xoogaa ugu yar waaweyno ay dadku ku kulmaan la iswareystaan xalay maxaa dhacay saaka maxaa soo kordhay marka newska laga reebo marka waxa naga saaka hadda lagu cusumi jiray laakiin state-ka gobernatoraha iyo xildhibaanada oo dhan oo labada guriga iyo already waxay ka sii gaashaanteen warar maqleen oo ah in tsunami halkan state-kayga ku soo socdo oo kii ciidanka already waa baaqday oo ninkii waa kii ka tagay meesha laakiin ninkan odayga cusub inuu agenda cusub iyo program cusub Washington State iyo Seattle area ba inuu soo samaystay taana shirar badan bay ka galeen madaxda gobolku magaalada caasimadda oo ah state kale Olympia Seattle u jirtay ilaa 50 mayl marka xaaladda hadda anaga halkaas ay maraysa waan ku salaamaya masha Allah thank you so much thank you appreciate that brother update fiican oo fadhidana siisa waa mahadsantahay 100% mar walbana nooga soo waran meeshaas aan siiyo dadka soo galay no name adaa ku xigay ku soco no name سعيد سعيدو ايه ما جوغان كان تروث ميديا موليد ما جوغتا ماي براذر بسم الله الرحمن الرحيم تذكر تليفوننا وسرعين ادرسوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه وسهلا يا رجل ادارتي قبل حتى غيره. الحمد لله وكوفي عنها ما شاء الله. حالي waxay ahayd habeen wata macluumaadka gaarka ah dad badan oo Soomaali dad badan oo Soomaaliyeed runtii xalay wax badan bay fahmeen waxaan ka hadlaynay marka inaynu abaar waqti qaadano kolay dad badan baa soo gali doono oo inaynu horta xogteena aruursano awood intee leeg baynu dhisannay aan isweydiino muhiim ah صح haddii aan dhisannayna power analysis map waa inaan samaynaa xaafadahee laga soo baxay marka codkaaga waana fog yahay waana backgroundkan waxaa kaa food baa ku jira waa ka soo baxaya laakiin guud ahaan waxa waaye xalay dagaal baynu galnay marka ciidankeeni maxaanu hub qabsanay inaan ka wada hadalno weeye marka si aanu dagaal u galno haddana kolay xalay clip baan kula soo sheergareeyey oo ninkii uu leeyahay ninkii ahaa languageka dagaalkeena nagu naqaanaa kaasaynu naqaanaa soomaalidu moogtahay dad adag baynu nahay marka xalayna waxaan ula soo sheergareeyey idris ninkii ku haya ciidamadu Minnesota ka bixi mayaan weliba meelaha goobaha waxay tegi doonaan doorashada marka warku waa cad yahay in la diyaar garoobo waa xaqiiq wey absolutely muhiimadda waxaa weeyaan walaalayaalow Soomaaliya meel walba ay joogtaan kontonka gobol ee Mareykanka meel walba ay ka degan tahay waxaa ka shaqaysaa sida aan wadankan community respect leh aan uga noqon lahayn wadankan in communitygaaga la respect gareeyo waxay u baahan tahay effort shaqay u baahan tahay cidna bilaash kugu iman mayso oo kugu siin mayso lagugu martiqaad ma jiro miiska lagugu martiqaadayo adigaa la rabaa inaad iskeento ma fahanteen maxaan isku keeni karnaa waxaan u baahannahay kontonka gobol meel walba oo qof Soomaaliya naga joogo in hal organization lagu mideeyo ka shaqeeya dhanka sharciga doorashooyinka iyo PR-ka iyo waxbarashada dabcan marka si taa loo helo asaaskeedii way wax la wado weeyaan waa asaaska weeyaan
dadkii baa la isku raadinayaa waxgaradkii baa la isku raadinayaa dadkii si wax loo dhaqaaqi lahaa la isku raadinayaa laakiin waa laga maarmaan wey otherwise we will never have any respect in this country okay wadamo waxaa jira hadda annaga dhibaatada nalagu sheegayo 10 jibaarkeed sameeyaa jira laakiin communitygooda iyo wadankay ka soo jeedaan baa looga cabsanayaa newska xataa ma soo qaataan magacyadooda way ka leexdaan dhibaatada ka soo gaaraysay ogyihiin iyo falcelinta ka imaan karta iyo dad wadankooda marka annaga haddii aan wadan aan isku haleynayna maanta uusan na garab taagnayn dee annaga inaan wadan isu noqono way Somali Americans annaga waa inaan wadan isu noqono annaga aan samaysana awooddaas ma fahantiin ku soco walaal qofka soo galay bismillah marka qof baa u baxay misaanaha ku soconayay ha ku soco inaad yara mashquulshan u maleeyay horta xaaladdu runta marka la isku sheego maraykanka waxay dhahaan it will get worse before it get better ma garata hadda maanta waxaad u jeedeen aqalka sare ee maraykanka in 2 saac looga hadlayay Minnesota yep attentionkii la rabay iyo horta miisaankii ay lahaayeen waa yeelan weyday abstiin waa laga galgalanayaa marka communitygeenna inaguna waa ku baqannaha iyana waan ugu maqan yihiin ma garan marka maalinba communityga waxbaan baraynaa isla qaadanaynaa arrinta hadda ugu muhiimsan hadda waxaanu noqonnay caucus baynu noqonnay qof kasta oo caucuska noqday inaan aan hello weeye sababta oo ah marka aad caucus noqoto caucuska laftirkiisa wuxuu soo xulayaa delegate ma garan walaalkaas muudgal leh walaalo muudgal isqushimiya waxa la flash garanaya wad saaranaya adab marka alxamdulillah horta ilaahay baa mahad iska leh laakiin in badan in la laqsi qabsado dhagaheena ay la sii qabsadaan ay iyo dagaal intaba waa la dhici doonaa in la sii qabsado document sida hadda walaal update-ka u qorayo oo la sawirayo oo document la samaynayo loo sameeyo siyaasadana aan uga sii qayb qaadanayno oo aan meel iska saarayno yaan laga daalin ugu dambeynta annaga guulaysanayna arrintii xalay dhacday aynu asbuuca ka shaqeyna sababtoo ah 7 bisha 3 baa la isku imaan doonaa waa maalin dhammaystiran waa full day 8 AM baa la gelayaa waxaa laga soo baxayaa 5 PM gabdhaha carruurta u joogaan waa inay usii samaystaan meel shamaartay ilmaha idii usii hayn lahayd ragga idriso anagu ragga reemilso xataa wiilasha ilmahana waa haynaa moogtahay anaga dadka shiftayga hadii ku soo aado ilmaha meel kale aan sii geeraynaa maalinta in loo diyaar garoobaa la rabaa full day waa maalinta la kala saarayo xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare ee stateka waa dadkii budgetka dejin lahaa waa dadkii in xukumi lahaa waxaan u noqonnay delegate-ka waxay ahayd inaan dadkaa la xisaabtano marka qofku markuu delegate noqday oo hadda caucus noqday mas-uuliyad baa saaran yuusan goynin sababtoo ah baawarkii baad luus garaynaysaa awal waxaan dadka ku dhahaynay baawarka soo qaado hadda dadku dhan baawarkii bay haystaan waana loo baahan yahay adigu 4 beri ilaa 5 beri bay qaadanaysaa DFL dimuqraadiga xisbiga dimuqraadiga intuu update garayn doono halkaasna magacyada kala soo bixi doonaa qofkii noqda laakiin inta kasii horeysa inaynu sii tashanno oon isku xirnaano oo xaafadaada yaa ka sharaxan xaafado waxaa jira Soomaalidu hadda aad ugu guurtay oo Dakota County ay ka mid tahay waa xaafadaha la flip garayn karo la bedeli karo qofku caucusku walaal Xaliimo Nuur caucusku muxuu qabtaa bay tiri maanaa ku soo celin karnaa 1 week baan ka hadlaynay xaafadaha maaragtay Shakabiyo kale xaafadaha ay ku badan yihiin ay ka soo galaan Republicanku waa xaafadaha aan rabno inaan awoodda saarno haddaan rabno inaan ISIS ka celino haddaan rabno inaan la xisaabtanno communitygan waddanka degan ee siyaasiyiinta ah macal dimuqraadiga laftirkiisu maanta wixii ka dambeeya wuxuu noo hayn doonaa respect buu noo hayn doonaa sababta waxaan qiyaasayaa xalay meesha anigu hadda aan tegey gabadha leaderska ka ah waxay tiri waagi hore waxaa noo imaan jiray 10 qof markay timaado waan yaabi jirnay tiri laakiin qolkayga keliya xalay waxaa timid
labaatan dhihin adigu ilaa 80 qof baa timid 80 qof meel la kala fariistaa la waayey dadku waa xamaasadaysan yihiin they are so mad so far dadka la isku afgartay in qof walba uu codeeyo waxa ka mid ah gabadha maaragtay Amy Klobuchar dadka inta kale oo dhan reserve baa laga yeeshay and we are the most vulnerable society in America haddaad aaminsan tahay we are the most vulnerable waxaa lagu dhegi lahaa ummadda ilaahay baa lagu dhegi lahaa dadka sida qof dabar yar cidi kuma dhigto waa la iska xirxiraa hadhowna tigid baa dadka la tusaa ninkani national levelka naga caayo we are not vulnerable we are powerful dhibaatada waxaa noo keentay meeshina loogu talagalay meelaan loogu talagelin baan galnay anaga waxaan loogu talagalay inaan warehouseyada ka shaqeyno dowladdan aan dadka cadaanka u dayno laakiin waxaan nidhi anagu go'aankayaga iyo taladayada anaga wax ka yeelanayna marka we are not vulnerable saa yaa la dhihin yaa saa la aaminin kor ha la isku soo qaado awoodda aynu xalay qaadanayna aanu isugu nimaano qof walba uu yuusan gadaal marin idris waa kuu soo celiye niyahow runtaa walaal waa mahadsantahay 100% ninka la yiraahdo David inaad taqaanaan oo malayna David yaa yaqaan David Soomaaliyay David ma taqaanaan David magaciisa last name-kiisa laguma daraayo because ma laha last name wax dhale lama yaqaano dadka la weydiinayaa David soo qor ma taqaanaan David waa ninkii la socday Nick Shirley ana nii sheegay haddaa garan weydeen David kii ay kuusnaa ee ay la socday Nick Shirley weeye marka kiibay maante Congress-ka looga yeeray maanta DC buu joogay Washington DC buu joogay maanta Soomaali buu ka hadlayay live streamkii baan daawanayay marka koox yaroo caloosha u shaqaystayaal oo Republican ah oo Ted Cruz ku jiro ayuu warbixin siinayay iyo kuwa kale markaas wuxuu ku yiri arrintii iga yaabisa waxay tahay kulaha deekeerada waxaan tagaa kulaha inta ayna furin ka hor aan meesha tagaayo ilmaha la keenayo footprinting-ka xisaabiya meeqa ilmooda meesha la keenay footprint-yada ilmaha galayo meeshaas raadka ayaan xisaabiyaa kulaha saan u ogaado how many kids meesha gelayso arrinkii markaa lagu yara kululeeyay lagu qabsaday Twitter-ka waxaa la yiri ninkan asaga investigation u baahan caruurta saas u daba socdo saaga caruurta ninka saa u daba socdo saa u baahan marka ninkaas ay maanta u shidneed ko DC u shidneed ninkaas maanta Soomaali ka hadlayay Ted Cruz oo iska maalayacni ah waa qof qolof ah waa qolof waa ninka yiri wuxuu isku xirayaa connection lacagaha ay fraudka laga qaatay Minnesota oo whatever fraud ba taqaanaa uu Trump ka hadlayay ayaa waxaa lagu bixiyaa argagixiso Soomaaliya joogta laga siiyaa board weyn intuu ku soo qortay al-shabaab oo meesha soo dhigtay marka wuxuu rabaa inuu connection been ah uu ka sameeyo meesha Congress-ka Mareykanka ku jira waxaa lagu respect gareeyaa qofka mabda'a uu leeyahay rag waxaa ku jira sida Ted Cruz iyo Lindsey Graham iyo oo faraku-tiris ah oo aan wax mabda'a lahayn calooshaas wax dhaafsiisan Ted Cruz waa ninka markii Texas ay ka dhacday mataqaanaa musiibadii biyihii iyo wixii mataqaanaa ay ka dhaceen duufaanadii daadadkii qaadeen inta uu dadkiisii constituency laga soo doortay intuu u tegi lahaa oo la qaybsan lahaa dhibaatada saaxiibka diyaarada u qaatay Cancun uu aaday vacation uu aaday inta sheekada xumeed oo dhan vacation uu aaday uu ka dhuntay hadhow baa gadaal laga soo ogaaday soo isqarnay waxaa loo maleeyaa ninkii Washington DC joogo martan baa la ogaaday ninkii oo Cancun iska joogo oo meel xeeba iska baashaalaya oo hotel resort ka kireystay oo ayaa la ogaaday marka the problem waxaa weeye noocaas oo kale marka Congress ku jiro codkina wuu haystaa waana qof marana waa ninka yiri aniga waxaan u joogaa Congress-ka Mareykanka waxaan u joogaa buu yiri oo la ii soo doortay inaan Israa'iil aan difaaco American ma u shaqeeyo taagan yahay ku soco walaalkii ar السلام عليكم إدريس السلام وقت السلام عليك iyo walaalaha kale
waxaan rabaa comment yar oo xoogaa misunderstood uu xoogaa walaalkeen u dareemay inaan wax yar iska saxo. Yes, of course, waa walaalkay adig ka horeeyay hadlay. idriso aniga idaji haddii dadka aniga noqon idaji dad kale kolley ku soo furayaan meesha ka buuxinay. Ay brother, thank you. Usha. Idriso walaal commentigaas oo ahaa we are the most vulnerable society. I don't mean that we inagu dhexdeena vulnerable mani waa is ognahay laakiin dadka inay targetaya kala because pointiga aan taa u sameynay baa waxay ahayd arintii aad ka shanqarisay ee ahaa 50 states in deganahay waa inaynu isu tagnaa oo very strong organization aynu samaysanaa taasoo horta hadalkayga daba socday marka intii aan qoraalka sameynay walaalkaas soo galay kadibna wuxuu u qaatay inaan aniga building aan ku sameynayo society and absolutely no. Very strong society nadiif ah shaqaysta dalkan dadka ugu wanaagsan ee ku nool sharcigana ilaaliya waynu nahay no doubt taasna weligeena waa aaminsan haddana waa aaminsan haddii mar ku soo noqdo topic-gaagii ahaa sideen organization wanaagsan oo dad Soomaaliyeed ay leeyihiin aan u heli karnaa taariikh yar baan rabaa xir inaan ka dabageedin ko raali waana boobsiinaya insha Allah hadda ka hor 2011 kii dalkeena famine markuu ka dhacay inaan cidii xasuusata barigaasna ana dadka ugu wanaagsan ee dadka Soomaalida ugu sumcadda fiican ee barigaas jiray ee xagga siyaasadana madaxweyne Farmaajo marka prime minister laga soo casiray buu ahaa waxaan isku dayay inaan isaga aan waco soo markaas Buffalo New York joogo Soomaaliya ka soo noqday in fact waa helay proposal baa u jeediyay waxaan ku yiri prime minister waxaa tahay hadda qof the most prestigious Somali person hadda la ogyahay baa tahay masha Allah marka aynu samayno xawaaladaha Soomaalida maadaama dalkeeni baahi badan ka jirto adiga iyo rag kale aynu ka shaqeyno xawaaladaha Soomaalida in fee high kiris ay sameeyaan oo boqolkiiba 1% ay ku daraan dan lacagta marka la xisaabiyo toward the end of the year annual hadii loo xisaabiyo 25 to 30 million dollars baa noqonaysa lacagtaas ay ka imaanaysa just pocket dadka Soomaalida waxba uma dhimayso ummad badan waxbay u taraysaa adiga oo hooyada Afrika ay joogto $200 hadaa u diraysid $2 hadii fiigi ku darsamo no matter what kama goynaysid adigina waxba kuma dhimayso society-gina wax badan bay u qabanaysaa marka when you collectively gather that money marka madaxweynaha barigaas wuxuu ugu jawaabay xawaalada iyo anaga maxaa dan ugu jirta so macnaha sometime markaan hadlayna we are not serious but we are very cynical pointiga marka aan socdo wuxuu yahay haddaynu rabno organization Soomaali ay leedahay inuu shaqeeyo which is the most needed time hadda ay tahay waxa lagu sameyn karo it's not only the word of mouth the talk is cheap by dhahan marka sida lagu sameyn karo waa action hadday diriso dhalada aad yarta biyaha aad ka cabaysa furkeeda aad u jeedo oo waxba aan qaadin 8 billion people ka adduunka ku nool hadday dhahan hadal baan ku buuxinayna ma ku buuxin karaan no ma buuxin karaan laakiin in fact waxa weeyaan one step forward oo yar qofkii qaad we can progress waxaan soo jeedin lahaa marka aniga in panelkaagan aad ka marti qaadid dadka Soomaaliyeed oo waqti u samaysid at least 1 week program socdo oo every state la isku dayo dad ka soo qayb galaan then aynu shir samaysano weyn meeshu doona ka dhaco then aynu dad ku doorano fundraising aynu samaysano waxana hadii maanta dhan hadal uu iska noqdo hadal wax ma taro laakiin waa waqti ugu haboon ee ummadeenu ay u baahan tahay in la badbaadiyo dalkana cid axsaan isu samaysa ma jirto cid isjecel ma jirto sharcigaas wada ilaaliya sharcigaasna community strong fiiri nimankan cadaanka ah waliga Allah ummadda kalo dhan inay ka hooseyso waxaad ku garanaysaa Asian community African American community Latino community such community so iyagu laakiin cadaan community wax dhahay ma jiro so the only wax nimanka inaga celin kara ee kula challenge garan karan everybody knows waa wada jir iyo sharciga oo iyagu waliba ay samaystaan ku challenge kareen marka intaas baan rabay inaan dhaho igana raali ahaada laakiin walaalkii hore kama wada society-ga Soomaalidu inay dad xun yihiin inay dad jilicsan yihiin inay vulnerability aan ka hadlayo point sidoo qaatay maaha macnaha kala daadsanaanteenan sida mar walba la inoo targetayo waxa la inaga arkay because maadaama aan kala daadsanahay that's where the vulnerability is coming from oo maasantiin waxaan rabaa waa mahadsantahay waa kushiinaya line waxaan rabay qodob hadda ka dhawaajisana wax yar ka weydiiyo
tusaale adigoo raalli ah tusaale soomaalida maraykanka degan dantooda guud horta ma la midayn karaa weyso organizationka in la dhiso waxyaalaha hadda aan jeclahay inaan platformkan aan ka bilowno waxaa weeyaan inaan u gogol dhigno sida aan one organization for all 50 states soomaalida degan matala aan uga samayn lahayn laakiin wixii si aanan mataqaana dadka qaar ayna uga faa'iideysanin wixii iyadoo intentionka uu fiican yahay si uga faa'iideysanin meel xun aan loo gelin ayaa muhiima in laga hadlo waxa baahida laga mideysan yahay iyada oo mataqaana hadhow dulduleel ayna yeelanayn waxaan waa ree hebelaa ku dhisteen iyo saan iyo qaab dhismeedka waxaa ka horreeya horta baahida aan ka mideysannahay inaan ka hadalno tusaale haddii aan ku siiyo waxaan ka mideysannahay difaaca aan uga baahannahay dhanka sharciga ama dowladda maraykanka ha ahaato ama organizationno kale ha ahaadaan sida hadda CIS iyo Project 2025 ha noqdo ama Congresska maraykanka ha noqdo marka waxaan u baahannahay difaaca dhanka mataqaanaa sharciga kow difaac dhanka miidiyaha inaan ka samaysano labo iyo dhanka doorashada saddexdaas baahi waa ka simannahay sax mase waa liga fikir dugan yahay yani waan ka simannahay ha Soomaaliga jooga San Diego iyo kan jooga Minneapolis iyo kan Virginia jooga waxaan rabnaa inaan fiirino inay baahiyahaas aan ka wada simannahay marka maxaa noo soo raaco waan ka simannahay shakiladaas ha okay marka waxaa noo soo raaco baahiyo yaryar oo kale aan ku dari karno dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo maaragtay qaar hooyooyin kaliya soo koriyeen ayaa xabsiyada ku jiraan jeelasha ku jiro second chance u baahan dad waxaa jira elboorada markay soo laabanayaan wadan ku soo laabanayaan application aadan ama reero soo laabanayaan elboorada lagu dhibaayo dad waxaa jira isbitaaladii looga faa'iideysanayo hadda ka hor study ay sameeyeen qolyaha waxay dhaheen dhakhaatiir waxaa jirtay oo caddaan ah oo dadka madowga patientiga madowga ah iyagoo mararka qaar badbaadin karo aynan sameynin ayaa la sheegay studiyo badana laga sameeyo la sheegay waa wax real ah oo dhacay weeye aye okay neo barnaamijkan hadda aad ka hadlaysaan aad buu fiican yahay barnaamijkan organization waxa loo heli karaa ugu saxsan waxa weeyaan kolka u horeysa horta inaynu dilno qabyaaladda qabiilka ma aha qabyaaladda inaynu dilno qabyaaladda nidaamka aynu ku dili karnaana waxa weeye maadaama saddexdaa baahiyooda hadda sheegtay oo ka daran ba aynu midaysannahay inteenan isku waaqaca ah ee maraykanka ku nool arrimaheenna iyo guddiga aynu doorannaa inuu fokus gareeyo aynu fokus gareyno meesha aynu degannahay iyo waxa ka jira qabyaaladda iyo waxyaalaha ina saamaynaya wuxuu nagaga imanayaa waddankii waxa ka jira inuuna ina saamaynin oo waddankan inu joognaaye waddanka dadkeenna joogaa baahideenna iyo difaaceenna iyo waxeennaba aynu waxaysan waddankan wax uga noqon lahayn iyo saynu isaga difaaci lahayn aynu ka midaysnaano oo guddiga la sameeyaba kolka horeba lagu beysgareeyo ruuxa la dooranayo iyo ruuxa lagu darayaba lagu soo xusho inuu qabyaaladda beri ka yahay oo qabiilka ma ahana qabyaaladda uu ninka ka hufan yahay qualify inuu yahay lagu dhaahiyo inuuna la falgelayn waxa Soomaaliya ka jira oo arrimaha la fokus gareynaya uu yahay Soomaalida Maraykanka degan iyo wixii duruufooda ah iyo wixii mustaqbalkooda ah ama iyo carruurta waxbarashadooda qaabkii loo jaahin lahaa kuwa gaangistarka noqonaya kuwa daroogada kuwa nolosha ka dhacay rehabilitation sida loogu samayn lahaa muxuu ahaayey wixii ina soo wajahay media wixii u saabsan dhalinyaro media aad aqoon u leh sidii loo abaabuli lahaa oon ahayn kuwan intay geemanka soo qaataan qabiilooyinka isku dhufanaya qabyaaladaba qayb ka ah xataa kuwa sidii loola dagaalami lahaa ee akuumadooda iyo waxa la isaga qaban lahaa kuwa qurbaha joogay inta waddan ka soo carareen kuwii xaggiina isku kicinaya kuwa halkana kala qaybinaya dhalinyaro aqoon loo korta sidii loogu samayn lahaa media metelaya ummaddan Maraykanka joogta iyo dhibkeeda ani arrimahaasa la kumanaan lahaa in laga hadlo sidii qabyaaladda loo baabin lahaa iyo sidii organizationka
baseball looga dhigi lahaa inuu arrimaha Maraykanka ka jira uun bes uu ka shaqeeyo oo aynu iska ilaalino saamaynta ayna saamaynayso ee calamaanta yar la ordaya ka mid tahay waxa waddanka ka jira oo ayna waxba ka qaban karin diyaarna waa inaynan degenin meesha ma sii soconno waxay la mid tahay guryaha aynu dhisanayna aynan degaynin marka aad baa isla thank you ayaa soo dhawaada khiyaarta soo gashay ku socda Idris, waay ha wax yaraan anigana ka dhiiban lahaa oo arrinta ku saabsan bulshada, especially Soomaalida iyo waxyaabaha challenges hadda ay wajahayso. Horta haddii fahankeena oo aan kala qaadno adduunyada hadda maanta modern world wuxuu ku dhisan yahay policies. Policies-kana waxay ka bilowdaan grassroots like community-gan oo kale hadda challenge ugu face gareynayo oo kale. For example, waxaa dhici karto